mudanayaal iyo marweyn ku soo dhawaada nolosheeda dhabta ah. Maanta waxaan rabaa inaan idin baro jaceylkayga. Waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan maadaama ay tahay kolkii ugu horeysay ee halkan ka soo muuqanayso. Hana isdhihinina ninkii caawiye ahaa sidee wax ka noqdeen maanta. Ma hadda ayuu inoola yimid jaceyl iyo sheeko caruureed. Are you crazy? Ha saaxiib, waa runtaa midaasi. Se waxa habboon inaad ogaato caawiye xitaa inuu naf leeyahay. Haddaba aan si wada jiro ugu gudagalno soo dhaweynta jaceylka. Are you sure? Sug saaxiibayaal. Aan idin weydiiyey maalinta jaceylka weli lama gaarin soo maaha. Hadhaha hee, sida oo ay tahana waan idin barayaa ee kaalaya ku soo dhawaada nolosheeda. Intaasna waxay ahayd saaxiibayaal kaftan. I was joking. Waqtiga maxaa inooga qasaarisay mar haddii aadan dumaashideenna baraynin. Haddii aad leedihiinna okay isdajiya. Haddii aad sidaas oo dhan u rabtaan inaad idin baro jaceylkayga waa kana ee ku soo dhawaada. Anigu wax la jeclaado waxaan ugu jeclahay in la jeclaado wax akhriska. Xalayna waxaan aaday bandhig ka dhacay magaalada Konya. Deedna waxaan iibiyey mid ka mid ah kiliyahayga si aan u soo gato buugaagtan. Sug. Labadayda kiliyood way igu yaalaan alxamdulillah ee waxaan ka wadaa lacagtii aan hayay oo dhan ayaan ku soo iibsaday buugaagtan. Waayo waxaa hore loo yiri inta aadan hadlin ka hor fikir, inta aadan fikirin ka horna wax akhri. Sidoo kale mid ka mid ah mucaashiqiinta akhriskana waxa uu yiri akhrinta buugaagta wanaagsan oo dhani waxay la mid tahay la sheekaysiga dadkii ugu wanaagsanaa qarniyadii tagay. bal suureyso saaxiib adigoo Albert Einstein, Isaac Newton, Aristotle, Ibn Haytham, Ibn Sina, Imam Bukhari iyo waliba Imam Muslim meel la fadhiyo. Deedna aad marna nolosha la faguraysaan, marna aad weydiimo isweydaarsaneysaan. Si aad darajadaas u gaartana la saaxiib wax akhriska. Haddaba saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa xog kooban oo ku saabsan faa'iidooyinka uu leeyahay wax akhriska. Deedna waxaan idinla wadaagayaa muuqaalo aan ka soo duubay bandhigii aan ka qayb galay iyo waliba xogo ku saabsan 22 buug ee aan halka ka soo iibsaday. Ee ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena maanta. Hana ilaawina inaad nagu soo biirtaan oo subscribe saartaan channelkeena. Laagtaaduna waa inoo muhiim. Mahadsanid. aadanuhu hadii jeer wuxuu u baahan yahay kobac iyo korinsho joogto ah. Akhriskuna waa arinta kaliya ee ka caawin karta korinshahaas. Waxaa shaki ku jira in wadamada horumaray ay ka aqoon xirfad iyo ilbaxnimo badan yihiin kuwa aanan weli horumarin. Waxaana saldhig u ah wadamadaas horumarkooda wax akhriska. Oo iyaga oo kaashanaya wax akhriska waxay heer ka gaareen culumta kala duwan iyo waliba wax soo saarka. Diinteena suubanna si ay inoo dareensiiso muhiimadda uu leeyahay akhriska ayaaba aayadii ugu horeysay ee Quraanka laga dhigay akhri. Waliba si amar ah iyadoo xitaa la ceejinayo Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Hadda ogow isagoo ummi ah oo aanan akhriskaba aqoonin ayaa sida loo galayay si loo dareensiiyo howlaha ku soo wajahan inay yihiin kuwa aad u culculus. dhab ahaantii akhrisku waxa uu leeyahay faa'iidooyin tira beel ah oo waxa uu kobciyaa garaadka maskaxeed iyo waliba ka aqooneed ee qofka. Waxa uu kor u qaadaa kalsoonida iyo kasmo qofeedka. Waxa uu inoo sahlaa curinta fikrado cusub iyo waliba dejinta qorshayaal guuleysta. Waxa uu ina siiyaa cimri ka badan kana dheer cimriga aynu haysano. Waxa uu ina geeyaa goobo aad u qurux badan oo aanan weligeen tagi lahayn haddii aanan waxba akhri kari lahayn. Aqoontu haddii ay tahay furaha nolosha, akhriskuna waa furaha aqoonta iyo waliba fahmidda dunida. Sida jirka uu ugu baahan yahay cunto ayay maskaxda iyo ruuxduba ugu baahan yihiin wax akhriska. Akhrisku waa qud awliyo iyo qaloon jimcad. Akhrisku waa dedejiyaha guusha oo wax uu ku soo koobayaa wadooyin aad u marin lahayd guushii aad hiigsanaysay. Daawade, haddii aad rabto in lagu sara joogsado oo waxa aad sheegayso uu miro dhal noqdo, saameyn oo ku yeesho dadka aad la hadlayso, wax badan akhri oo buugaagta ka dhigo wehel gaar ah iyo waliba saaxiib aadan faaruqin. dhab ahaantii jaceylka wax akhriska waa hadiyad aad u qiimo badan qofkii dhaqan ka dhigtaa. nimcada iyo awoodda in lagu sifoobana wax sahlan maaha. Se waa inaad maantaba bilowdaa safarkaaga dhabta ah ee nolosha iyo waliba wax akhriska. xalay waxaan tagay bandhig ka dhacay goobtan aad arkaysaan. ujeedkayguna wuxuu ahaa kaliya 5 ilaa 7 buug inaan hore u soo qaato. kolkii aan meesha tagayba waxaan ku arkay buugaag fara badan oo aan raadinayay iyo waliba ciwaano dhowr ah oo aan islahaa mid u baar oo buugaag laga sameeyay. deedna buugaan qaad kan ku dar sidii aan ugu jiray ayaan arkay inay labadeedii gacmood buuxsameen
bangigaygina uu sii faaruqayo. deedna waxaan idhi okay, intaan horta soo dhamay oo soo akhri, kadib ayaad u soo noqon doontaa meeshaan. dhab ahaantii waxa qiimaha gaarka u sii yeelaya bandhigan ayaa ah in ay carwo waliba soo bandhigayso buugaag gaar ah. carwooyinka qaar ayaa soo bandhigaya kitaabo diini ah, kuwana sheeko faneed, kuwa taariikh, kuwa dhacdooyin, kuwa siyaasad, kuwa suugaan, kuwa falsafad, oo adiga oo aan ku wareegin ayaa si toos ah meeshii aad rabtay u tagaysaa, deedna waxaa soo qaadanaysaa buugaagtii aad rabtay. haddaba anigana waxaan soo qaatay 22 buug oo kaliya. se waxay ka hadlayaan mowduucyo kala duwan misana aad u cajiib ah. waxaana hubaala inaan buugaagtan ka diyaarin karo 100 muuqaal oo waliba si aad u sareeya looga soo shaqeeyay lana soo wada koobay. oo tusaale ahaan buuggan aad arkaysaan waxaa qoray wiil dhalinyaro Turki ah misana YouTuber ah kana tirsan kooxaha agnotismka. qolyaha agnotismkana waxay aaminsan yihiin inaan la oran karin Ilaahay waa uu jiraa waliba si 100% ah, sidoo kalena aan si 100% ah loo beenin karin jiritaanka Alle. haddaba buuggan waxaa u soo gatay inaan naqdiyo oo cibaanadiisa ugu waaweyn ayaa barnaamijyo ka sameeyay sida jiritaanka hal ilaah, ogaanshiyaha saxaanshaha diinta islaamka, maxaa loo abuuray malaa'igta, Alle muxuu ku falayaa cibaadadeena, oo muuqaaladaas oo dhanba waxay ku jiraan channelkeena oo halkaas ayaad ka daawan kartaan. haddaba buuggan kaliya waxaan ka aqriyay ilaa iyo hadda 64 page, waana wax ka badan 600 oo book. oo ujeedka aan buuggan u soo gatay wuxuu ahaa shakiga iyo khuraafaadka ka buux inaan mid ugu jawaabo oo aan naqdiyo, waana sii wadi doonaa naqdintiisa. sidaas oo kale ayaan buugaagteena cusub u lafaguri doonaa haddii uu Rabbi raali ka noqdo, adinkuna aad ina dhiirigelisaan. haddaba haddii aan u guda galno buugaagtii aan halkaa ka soo qaadanayna, buugga koowaad waa buug caan ah oo uu qoray George Orwell, waana buuggiisii Animal Farm oo aan rajeynay in af Soomaali loo turjumay. dhab ahaantii qoraagani waa mid ka mid ah qoraayada aan ugu jecelahay, waliba waxaa jira buug aan wada akhriskiisa oo uu qoray lana dhaho 1984. waa buug dystopia ah, waliba sheekadiisa waxay ku dul wareegsanaysaa nin lagu magacaabo Winston Smith, ahna mid ka mid ah raggii lagu carbiyeeyay inay dib u qoraan taariikhda ay ku dheeleen kooxaha gulwadayaasha ah. waxaana dowladda maamulo walaalka weyn oo isagana insha Allah barnaamij ayaan ka soo sameyn doonaa. buugga labaad ayaan ka soo gatay bandhigan ah waa buug isagana uu qoray qoraagii caanka ahaa misana Raashiyaanka ahaa ee la oran jiray Leo Tolstoy. ciwaanka buugganina waa Aadanuhu muxuu la nool yahay. waa buug falsafadeed misana sheeko ahaan u qoran, wuxuuna ka hadlayaa aadanaha, dabeecadda, jaceylka, saaxiibtinimada iyo waliba micnaha dhabta ah ee nolosha. buuggan saddexaadna wuxuu ka hadlayaa sirta ka dambeyso in bulshooyinka qaar ay noqdaan kuwa awood badan halka kuwa qaarna ay yihiin kuwa taag daran, waliba iyagoo halkan ku wada yaalo, qaarkoodna ay xitaa hal qaaradood ku wada yaalaan. buugga afaraad wuxuu isagana ka hadlayaa dopamine oo ah dheecaan ay maskaxdeena iyo waliba dareenwadayaasheena soo daayaan, waana dheecaanka u qaabilsan jirkeena abaalmarinta, feejignaanta iyo waliba dhiiranaanta. haddaba dheecaankan haddii loo soo daayo si xad dhaaf ah ama si aayar ah, wuxuu saameyn ku yeeshaa nolosheena, deedna waxaynu galnaa badweyn mugdi iyo cadaab ah. oo waxaa qasaba inuu had iyo jeer noqdo mid isku dheeli tiran. sabaraha bulshada oo aan saa'id u isticmaalno ayaa ka mid ah waxyaabaha qalqal geliyo dheecaankan. insha Allah buuggan isagana wixii aqoon ah oo aan ugu dhex tago waan idinla soo wadaagi doonaa. buugga shanaad wuxuu isagana ka hadlayaa sida wax loo barto. waxaa jira xilligii aan xirowga ahaa 2013 kitaab ay culimadu inoo aqrin jirta oo la oran jiray Tacliimul Mutacallim. dhab ahaantii kitaabkaasi wuxuu qofka baraya ahmiyadda uu cilmigu leeyahay, ixtiraamka macalinka iyo waliba dhisidda shakhsiyadda qofka. sidoo kale waxaa jira kitaab kale oo la yiraahdo Tacdiimul Cilmi oo aan isagana aqristay 2018. haddaba buuggan wuxuu la mid yahay kitaabadaasi, se wuxuu ugu duwan yahay inuu ku siinayo ilihii aad xogaha ka heli lahayd iyo waliba buugaagtii aad aqristay sidii aad u dhuuxi lahayd adigoo waliba xogtooda iska kala shaandheynayo. labadan buug iyadana waan idin qarinayaa xogta ku jirto, waayo horey umaanan arag qof Soomaali ah oo barnaamij ka sameeyay, marka sir ha inoo ahaato saaxiibayaal. saddexdan buug ee aad aragtaanna waa buugaag sheeko faneedyo ah oo uu qoray qoraa caan ah una dhashay dalka Kirgistan, waxaana loo turjumay 176 luqadood, si weli maanan arag iyagoo af Soomaali ah. buugaagtan kale ee soo haray aad u jeedaan dhammaantood waxay ka hadlayaan falsafad, waayo 2 sano ee ugu dambeysay waxaan xoogga saaraya aqrinta sheeko faneedyada, dhuuxidda falsafadda iyo waliba dhadhaminta suugaanta caalamka. haddaba buugaagtan falsafadeed waxaa ka mid ah buug ka hadlaya cudurka dilaaga ee la yiraahdo rajo la'aanta, jiritaanka sharta iyo qeyrka, hadallada ka guuxaya gudaheena, xeerarka sayska u ah falsafadda aadanaha oo ah buug barakeysan,
wuxuuna gaarayaa 540 buug. sidoo kale buugan ciwaanka looga dhigay duni leh hal ilaah isaguna waa maasha Allah oo wuxuu gaarayaa ku dhawaad 610 page. buugeenan ugu dambeeyana wuxuu ka hadlayaa aaladaha garaadka leh, isbeddelka lagu wado aadanaha iyo weliba diinta. haddaba saaxiibayaal waad u jeedaan buugtan oo dhan waa af Turkish ee haddii ay ahaan lahayn af English ama af Carabi waan idin soo hadiyeyn lahaa. saaxiibada yaqaano af Turkiga ee dhihi doona annaga inoo soo hadiyeyna waxaan leeyahay mudanayaal buugta aad bay raqiis u yihiin hijaabka gacanta geliya. intaasina waxay ahayd kaftan ee saaxiibayaal lacagta ka qaad naftaada una qaad isla naftaada oo buug ugu iibi. ugu dambeynna haddii aad halkaan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ay inoo tahay saaxiibayaal. inta aan barnaamijka xigay kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim.